madaxweyne kastoo yimaadayaanan cayrini madaxweyne kastoo yimaadayaanan dhihi waa tug madaxweyne kastoo yimaadayaanan oran waa qaan goormaa marka madaxweyne saxa tilmaami doonaa mideeda kale mucaaradka waa la noqdaaye waxaa weye mucaarad xaasida oo waddanka kala tuuraya lama rabo mucaarad fiican oo runta sheegaya noqo ma fahamta iska daaya dowladaana kala wata iyo waxaasaana kala wata iyo waxaan soo xasuustay nin agwaanahayo anu malaynaya hadda inuu yurubta degan yaho agwaankaas waxaa la yidhahdaa aad aan u jeclahay wadaadadu isku mid maahan baan ku yiri yacni dadka horeyba waxaan kugu sheegay sida yacni waatan sheekadaydii hore ku jirtay macallinku intaanu macallin noqon annaga markaan macallimiinta noqonayna la fooyo farsamada gacanta intaanan macallimiinta noqon baa waxaa nala baray macallinnimada way faham soomaa shaqada qarankii dowladda sidaa dare marka la samayn jiray yaaden waa tii la baxayo macallin la noqday soomaad gala warkey marka waxaan ka wadaa culummada laftooda waxay kala yihiin baan ku yiri dadka wax ku kala sheegi og qaar kaa qosliyaa jira qaar shaah kuu shubayaa jira qaar raashin kaa bixinayo kula sheekaysanaya kabacdi hoosta ku gelinayaa jira ilaahay ka cabso oo waxaad samaysaa waxyaalaad ku jirta ka bax ma faham qaarna waxaa ku leeyahay halunaar baa tahay waxaad tahay dhirxun baa tahay naartaad galaysaa kabaa lagaaga sii waayadii hore maan tagnay waxaa sagaashameedii soo marnaan ka hadlayaan marka waa isku naxariis maaha labaduba waa laba doonaya inay diinta faafiyaan waana kala leeyihiin may fahamta marka waxaan ku yidhi qaar ad adag baa jira oo aad waxooda qaadanayso aad ka cararayso oo leedahay kan waxaan kuu sheegayaa ood is leedahay yaa iska dhiciya ood la dagaalayso qaarna way kugu soconayaan waxooda aad iyo aad marka macallimiinta kale ah baan ku yidhi yacni waxaa marka ninka u soo qaatay ninka aniga inta ayla daba joogay waxaan hadalkaa u lahaa anuu dadkan ka qosliya dembigay waa qosliye kuwa ku ohinaya la hadal intaasaa asigii waxaa rabaa inuu garta qaadka moogta marka uga jeeda kaa ka ohinayo lama hadli karo anuu buu yeeryanay mudduu soo eryaday mooradda waxaan la cabtuunay waa carsaan iyaga uga cararay oo nimankaasa ka cararaysay waa kumid yahay waa kaaga qosinaya waa jeclaa cudamada qaar waxaa jira wallaahi aad iyo aad ku raaxaysanayso oo kugu duxayaan waxay ahayd siday quraan ku aqriya siday wax kugu sheegayaan qaarna waxaad leedahay yaa kaa aamusiya waa intaa ujeedkay meeshow waxaa tahay majaajilista qaran oo dadka soomaaliyeed aad u yaqaaniin barnaamijkeena qaybtii ugu dambeysa waaye waxaa rabaa inaan ku weydiiye marka ma jirtaa fariin aad u diraysid bulshada soomaaliyeed meel walba adduunka ay ka joogaan wayna ku daawanayaan haa waa jirtaa fariinaan u diray bulshada soomaaliyeed waxaan u dirayaa meel kastay joogaan horta ilaahay ha laga cabsan ilaahay ha laga cabsan maalin aakhire iyo maalin qiyaamaana sugaysa maalin aan laysku cafinaynin baa jirta horta meel kastood joogteen ilaahay ka baqo oo toobadda ku dadaala baa le waa qodobka koowaad tan labaadna waxaa leeyahay waddankiina jeclaada qabyaaladana iska daaye qoloqolada iska daaye isku cayrisa iska daaye waxaan taariikhaa laga soo maray waddankan dad baa u soo dhintay dad baa u soo gubtay dad baa loo daldelay dad baa u baaba'ay ma fahamta dad baa waddanka looga saaray dad baa yacni loo soo marjiyey oo loo soo xukumay ma fahamta dad baa dhagax lagu soo dilay dad baa fallaare lagu soo dilay way fahamta sumarkeed intaas dowladnimada aan raadinaynin oo ay gacanteena soo gashay waxa weeye inaan sagsaagin anigu waxaan baraha bulshada iyo maanta aan dadka fariin u furayaa qodobka la yidhaahdo waxa weeye soomaalinimada ha laysugu yimaado meesha doontaan kala aada dibadaha doontaan kala aada ma fahamta warkayga magaca soomaalini la yidhaahdaa oo soomaalinimada ayuu dhimanin waa qodob يعني وقضب بقى كل بعض وكي ولا واحد هلا يبغى إله أنت قضب كل بعض مقع هن الله يلاني دولة لماذا هن الله يلاني مدحوينك استوي ماذا يعني عايريني مدحوينك استوي ماذا يعني وتو مدحوينك استوي ماذا يعني أورا الواقع قول ما مركب مدحوينه الصح في ما بدورنا من ده كلام معارضك وأنا النقطة وحوي معارض حاسدة وودك كلا طورة يلا مرة
mucaarad fiican oo runta sheegaya noqo ma fahamta aad u weyn iska daaya dowladaadna kala watay waxaasana kala watay waxaan soo xasuustay nin agwaanahayo anu malaynaya hadda inuu yurubta degan yaho agwaankaas waxaa la yidhahdaa aad aan u jeclahay mustafa sheekh cabdi marka berigu wuxuu la hadlayay niman xildhibaanaa oo dowladda cabdiqaasina dowladda cabdiyaalaysu marka la dooranay marka wuxuu yidhi taankay joogaan nimanka ku xaraysan yihiin waa mustafa haa haynoo showlakeen aan wax usoo sheegnay waan tagnay xildhibaanadii oo shilaya fulaniintii soo gal markaan galnay ayuu wuxuu yidhi waay baan u dhiganaa nimankaas labadeena keliya weeye mustafo aan faa'iidaha u dhigi karnaa wuxuu yidhi waxaan u dhigaynaa anigu iska daa waxaan dhahay iga daba dhig waayahay baan wuxuu yidhi ayaga dhan waxaan ku soo koobaynaa hal hees heesu maxay tahay marka hees wuxuu qaaday yaadan يعني اللي موتاي معناها وحيري يا وحيري يا مدحوينه نو يا الدور لايو او maxay dhahay marka macnaha dadkii meesha isku yimid walaal ya moogtay safiya wuxuu ya madaxweyne noqdo dooranayo macnaha meel ya ha wuxuu ya maamulo madaxno noqdon meel laga lahayn marka waxa ka dalay meel laga lahayn wariyaan maamulo madaxno noqdo oo doorano meel laga lahayn on meel laga lahayn mataqaana macnaha waxaad maqlaysaa kan yurub baa wadata kan maraykan baa wadata waa waddankii la dooranaya moogta kan kenya wadata kan etoobiya wadata kan qatar baa wadata kan sacuudiga wadata waa inta shidaysa marka wuxuu le waryaanu dooranaayo meelna laga lahayn soomaali wuxuu yidhahdaa waryaa cadaysina weligaa rabta cadaysina maaragt cadaysina mataqaana waa neefka aan rarku saarnayn ratigu markuu ebel yaala wada maarag cadaysin baa layidhaha markii la ranan waa ranaya waryaan rar saarnay oo meel laga lahayn oo aanu dooranaa ku lahaa anigii baa ilmeeyey waa runtiis mustafa waa mustafa aad baan u jeclaa waa nin aad marka ayagoo dhan shib bay dhaheen waxay ku hadlaan ma yaqaaniin maska sacdinayaan way sog yihiin nin walba meel baa laga waa la fadhiyaa masar baa wadataa maqlays masar baa kan waxa wateebla waana la macnaha marka ujeedku waxa weeye warooy wadanka meel kale maliya haddaan sii soconaayo carro kala tagno 35 sano qaxootiyo ku jira anu wareegaya Kongo Uganda meelaha marin male marka waxaan ka wadaa war wadanka hala jeclaa siiba kuwa gudaha ku jira wadanka ilaalinayo cadowga aan jeclayno maalin walba ka ilaaliyo cadowga dibadda ka yimid iyo kan gudahaba ka ilaaliyo adeerayaal midooba oo walaalooba oo madaxweynayaasha yaalaan caayin oo dowladda yaalaan caayin oo goor baan isqabsanaynaa madaxweynaha dooratay ilaahay waa la xisaabtamay waa la xisaabtamay hadduu ku xumeeyo ilaahay waa la xisaabtamay ilaahay baa ku dooray hala aaminaa leeyahay madaxdiin